dacwad xooggan ayaa ka taagan dhacdo aad u foolxun taasoo lagula kacay qaar ka mid ah Soomaalida ku nool xero qaxooti oo ku taala duleedka magaalada Cape Town ee dalkan Koonfur Afrika kuwaasoo sanadkii 2008 bishii Juun lagu qoodiyay raashin qurmay hilib dameer iyo waliba waxyaabo kale oo aan la garanayn ilaa haatan halka laga keenay falkan lagu qoodiyay Soomaalidan raashin qurmay hilib dameer iyo waliba waxyaabo aan la garanaynin ayaa waxa la sheegay inay ka dhacday xero qaxooti lagu magacaabo Sweetwater oo ku taala duleedka magaalada Cape Town dalkan Koonfur Afrika kadib markii dib loo dajiyay qaxootigan ayaa dacwad lagu oogay hay'adii xilligaas qoodin jirtay iyadoo cadeemo iyo marqaatiyaal badan lagu helay waxaana maxkamad ku taala magaalada Cape Town dib u dhigtay dacwadooda saraakiisha caafimaadka ee magaalada Cape Town ee dalkan Koonfur Afrika oo xilligaas shaybaar caafimaad u diray cunto bisil oo loo qeybiyay boqolaal qaxooti Soomaali oo u badan tahay ayaa cadeeyay in raashinkaasi uu ahaa mid qurmay xaaladda caafimaad uu yahay mid halis ama dhibaato u keeni karta balse arintaas ayaa laga aamusay xilligaas maadaama aysan jirin cid u doodo xuquuqda qaxootiga Soomaaliyeed ee dalkan soo micin biday walaal qof oo Soomaali oo lagu qoodiyay hilibkaasi dameer iyo raashinka qurmay ayaa qaarkood waxay ahaayeen ganacsato Soomaaliyeed kuwaasoo ka soo barakacay tuulooyin ku yaala gudaha wadankan Koonfur Afrika halkaasoo lagu boobay ganacsigoodii kadib rabshadii ajaanib ka dhacay wadankan Koonfur Afrika saddex ka mid ah boqolkii qof ee midkood uu Soomaali yahay ayaa waxa dacwadani soo oogay waxayna isku raaceen dhamaantood in arintani meel la yaqaano looga soo haro iyagoona dacwadoodii geeyay maxkamadda ugu sarreysay magaalada Cape Town ee wadankan Koonfur Afrika si kastaba ha ahaatee dacwada noocan oo kale ah ayaa caadiyan dalkan Koonfur Afrika waxay qaadataa muddo aad u dheer iyadoo baaritaan dheer kadib xukun la dul dhigo dambiilaha balse arintan ayaa dadka qaar waxay ku tilmaameen horumar ay gaareen dadka qaxootiga ay ku dhaqan wadankan Koonfur Afrika maadaama ay arintan tahay tii ugu horeysay ee nooceedo kale ah ay maxkamad dhageysato عبد الناصر صوماني Universal TV Johannesburg Koonfur Afrika